وأسود أحبتي فلنحيا في أمان. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلام عليه. ثم ما بعد، إخواني وأحبتي في الله، waxaynu dib ugu soo laabanay mawduuceennii musalsalkeena ahaa oo aynu soo bilownay wiigii hore oo aynu ballan qaadnay inaynu halkaa ka sii wadi doono oo ku saabsanaa mucjizaadka nabiga calayhi salaatu wasalaam, muqtadafaat xawla mucjizaati lmustafa sala allahu calayhi wasalam. waxaan jeclahay maanta inaynu dhowr mucjizo oo kooban aynu tilmaano oo ku saabsan hijradii nabiga calayhi salaatu wasalaam. mucjizada koobaad, nabiga calayhi salaatu wasalaam oo hijradiisii calaaqada la leh waxa weeyaan nabiga waxay go'aansadeen nimankii quraysheed oo hogaaminaya ninkii la odhan jiray abujahal. kadib markii ay shireen sirkoodii waxaa ka soo baxay nabiga in la dilo. waxayna u soo saareen 11 nin oo uu ka mid yahay ninkii la odhan jiray abujahal iyo abulahab iyo umayata ibnu khalaf, umayata ibnu khalaf ninkii la odhan jiray, nadar ibnu xaarith iyo munabbah iyo nabiih oo ibna xajaaj ah. raggaas ragay ku jiraan oo raggii madaxyooyintaa ah ayaa loo soo saaray. gurigii nabigu deganaa calayhi salaatu wasalaam ayaa waxayna ka qabteen isweer ay ka qabteen. nabiga calayhi salaatu wasalaam waxyi baa u yimid, malaku jibriil baa ilaahay tabaaraka wa tacaala uu soo diray oo la leeyahay loo sheegayo in caawa la rabo in la ikhtiyaalo oo la dilo. raggaana go'aankay go'aansadeen waxa uu ahaa markay mushaawaroodeen oy tashadeen kadib oo waxyaabo badan ay isu keeneen. qaarkood ay yidhaahdeen ha la xidho, qaarkood ay yidhaahdeen waxaa weeyaan waddanka ha laga caydhiyo, qaar bay waxay yidhahdeen markii ugu dambaysay abujahal baa waxa uu yidhi ninkaasi aynu dillo, rag weliba qabaa'il kala duwan ah si reer banu hashim ay ugu wareeraan oo meel ay wax cid ay la dagaalamaan intay garan waayaan ay markaa ay u qaataan diyadiisa ay u qaataan. arrinkaasi waxaa weeye markii uu dhacay oo go'aankaasi uu soo baxay, ilaahay tabaaraka wa tacaala rasuulkiisa waxaa weeye waxyi baa ku soo degay, waxaana la yidhi meesha iskaga tag baa lagu yidhi. waid yamkuru bika aladiina kafaruu liyaqtuluuka aw yukhrijuuka ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. markii waxa weeye ay ku makrayeen oo dhagarta waxa weeye kula raadin hayeen, dhagartaas oo isugu jirtay inay xabsi ku galiyaan ama ku caydiyaan ama sidoo kale waxa weeyaan ay ku dilaan. laakiin ilaahay tabaaraka wa tacaala ba meesha joogay, maysan ku xisaabtamin arrinkaas ayada. walaa yahiqu al-makru as-sayyi'u illa bi ahlihi. waxaana dhacday nabiga calayhi salaatu wasalaam waa mucjizada koobaade inuu waxa weeye soo baxay oo dhexdooda waxa weeye uu soo maray, weliba ciid intuu qaaday inuu ciiddiis ayada uu ku saydhay, kullina madaxooda iyo ruustooda ay wada saamaysay, isagoo akhrinaya aayadda ah waxa weeye wajacalnaa min bayni aydiihim saddan wa min khalfihim saddan faaqshaynaahum fahum laa yubsiruun. calina booskiisii uu seexiye uu ku yidhi ha moodaan inaan anigu waxa weeye aan joogo, isagoo sababta uu sidaa u yeelay laba arrimood ay culimmadu ku tilmaameen. waa mid ee waxaa weeyaan ayagu inay ku qaldamaan, waa midda labaade inuu kala dardaarmay waxyaabihii ammaanooyinka ah oo dadka u hayay oo faraha badnaa inuu waxa weeye ku wareejiyo. kadib markaa isaguna uu soo baxo nabiga calayhi salaatu wasalaam meeshii waa uu ka soo dhex baxay. mucjizadu marka waxay noqotay inuu soo dhex maray ayaga oon arkin, ilaahayna tabaaraka wa tacaala uu ka indhasaabay oo uu ka qariyey. guriga abubakar ayuu markaa yimid. abubakar bay sidii waxaa weeyaan ay isku soo raaceen, kadibna waxay galeen qaaru waxaa weeye qaaru thawr buurta la yidhaahdo ayay galeen. buurtaana waa buur maka waxaa weeye ku taalla junuubkeeda ku taalla ama koonfurteeda waxaa weeye ku taalla. waa meel ay islahaayeen waxaa weeyaan yacni waxaa weeye dadku inay ay u maleeyaan meel kale iyo jiha kale inay markaas ayada ay aadeen. halkii bayna 3 habeen ay ku jireen. mu'arikhiintu waxay leeyihiin maalinka ay meeshaa ka soo baxeen nabiga waxay ahayd maalin waxaa weeye khamiis ah, jumcadii iyo sabtidii iyo xaddiba halkaas 3daas habeen ayay halkaa waxaa weeye ay ku jireen. siyaabo kala duwan bayna maaragtay waxaa weeyaan intay meeshaa joogeen ay maaragtay waxaa weeye ay meeshaa u joogeen. waxaa u iman hayay mar kasta u iman hayay abubakar wiil oo dhalo cabdullaahi la yidhaahdo, wiil kale oo maaragtay abubakar asagana mawlihiisa ahaa oo la odhan jiray caamir binu fahir, asagana ariga ayuu soo marin jiray markaasuu caanaha ooga lisi jiray. mucjizada la yaabka kale oo maalinkaas waxaa weeye iyadana dhacday oo hijradii nabiga calayhi salaatu wasalaam ku saabsan waxay ahayd intii ay ku jireen godka inay gaaladii oo raadinaysa ay yimaadeen oo meeshaas waxaa weeye godkii ay soo kor istaageen. godkii markay istaageenna inay godkii ay fiiriyeen haddana aysan arag nabiga iyo calayhi salaatu wasalaam saaxiibkii. isla markaana waxaa weeye markii uu arkay abubakar nimankii oo kor taagan inuu ooyey oo uu walbahaaray
nabigana calayhi salaatu wasalaam inuu dejiyey oo uu ku yidhi أبو بكر وما ظنك باثنين الله ثالثهما لبا إلهي أصدح كو يهي محاد لينيسا إلهي تبارك وتعالى إنه هوشنا ينكله إلهي مو هوشنا يو وحنا كسو دقايد القرآن كيدا وهيد إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته على رسوله وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم إلهي تبارك وتعالى وحاوي وكبد بعدي كذب وحاوي ننكي إلى برلمان ونن قال عبد الله بن أوراق الدورنشري أيا وحاوي آمنين أيا صدح لي مع الموت وحاوي مركز ما تكذب ويمد هلكي ويمد هلكي بين كسو عند لاقين مالين وحاوي سنينة أيا صباحين مدينة وحاوي سوادين طريقة أنت أي سومر هايين ayaa marka haddana waxaa dhacday mucjizo kale oo waxa weeye la yaab leh mucjizadaas waxa weeye la yaab kale waxay ahayd nin la oran jiray Suraqata ibn Malik waxa soo saaraya qisadaas ayada Bukhari iyo qeyrkiiba way soo saarayaan lama ya'isa al-mushrikuuna min ad-dhufri bi rasuulillahi sallallahu alayhi wasallam iyo Abu Bakar markay gaaladii waxa weeye ka quusteen nabigii iyo waxa weeye Abu Bakar inay helaan يوم الهجرة جعلوا لمن جاء بها جائزة تبلغ 100 ناقة mar allaaliya markii waxa weeye ayagu ay arkeen inaynan ku guuleysan karin inay helaan nabigii iyo Abu Bakar ayaa waxay yiraahdeen nin kasto Abu Bakar ama Nabi Maxamed keena ama han noolaadaan ama ha dhintaane waxaan siinaynaa 100 neef oo geela fajadda an-naas fi talab dadku marka waxay u kala oratameen isla markiiba inay waxa weeyaan ay soo qabtaan nin walba meeshii uu joogay buu ka dhaqaaqay falamma marru bi hayy bani mudlaj markay nabiga iyo Abu Bakar ay soo mareen بني مدرج نمانك لا يرادو reerkoodii markay soo mareen ayagoo muscidiina min qadiidin basara bihim rajulun min alxay nin baa wuxuu arkay xayigii ama qabiilkii meesha deganaa ka mid a fawaqafa cala alxayi qabiilkii buu soo kor istaagay faqaala wuxuu yidhi laqad ra'aytu aanifan bisaaxil mar dhowaan waxaan ku arkay wuuhi xeebtaas ayada ah aswidatan maa araha ilaa muxamadan wa asxaabu waxaan ku arkay dad meesha maraya waxaan u malaynayaa dadka ayaga inay yihiin nabi maxamed iyo asxaabtiisii fafatina bil amri Suraqata ibn Malik isla markiiba waxa arintaas ayada fahmay Suraqa ibn Malik oo nin aad iyo aad u aqli badan ah nin shaacir oo labiban ah faarad an yakuna ad-dhufru lahu khaasatan wuxuu doonay marka ninka ku guuleystay jaa'izadaas 200 oo neef oo geel ninka qaadanaya inuu asaga noqdo waqad sabaqa lahu min ad-dhufri ma lam yakun fi hisabi arrin weyn oo asaga marka jadwalka ugu jirin xoolo badan inuu helay ayuu marka waxa weeye uu iska dhadhiciyay faqala marka saawuu yiri balhum fulan wa fulan ninkii walaal wuxuu ku yiri waxa meesha marayay hebel iyo hebel bay ahaayeen iska dhaaf kharaja fi talabi hajatin lahuma waxayna u baxeen dan ayagu marka ay leeyihiin anaan arintaas ayada oga thumma makata qalilan xogaa yar buu marka meeshii sii fadhiyay si aan loo fahmin macna thumma qama fadakhala khibaahu wa qala li khadimihi kadib uu kacay markaasaa gurigiisii intuu galay yaa khadimkiisii wuxuu ku yiri ukhruj bil farasi min wara'i al khawa faraska iga saar waxa weeyaan guriga gadaashiisa ama maaragtay waxa weeye teendada gadaasheeda iga saar buu ku yiri macna وموعدك وراء لكما بلن كأننا وحويهن تاجاس جداشيسة إن وحوي سوني ما إنه أنت وحسكي لنا يا تذكر كلا وحويهن إني أركان ثم أخذ رمحه ورن كيسيبه مركا هري وأصيقاتي وخفض عالية ورن كيس أفكيسين هوس بودغاي يخض به الأرض حتى ركب فرسه سو دولك مركا وحوي سداس أوجو جيدايا فلما قرب منهم مركو أسو دوادي وسمع قراءة النبي صلى الله عليه وسلم نبي قراءة سين أو مغلي نبي وحالي أنت أو سعودي أو وضو سي سعودي قرآن كو أخناي وأبو بكر يكثر الالتفات أبو بكر وحاول الالتفات كبادنيا حقا نفيرنيا ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا يلتفت رسولك جيسي بوها مفيرن هايو مدقيه بيعتونا قرآن كيسو سكا أخرسنايا أبو بكر ومركا وحور يا رسول الله هذا سراقة ابن مالك قد رقمنا كانوا حاويها سراقة ابن مالك رقمنا وانا نسوق غاري وانا سوق كوري ولي معناه وانا سوق كوريو وانا سوق غاري معناه أبو بكر وحا لغا ورينيا روايان كقاركود وحا لغا ورينيا وحو نو سوق غاري ولي إلى وحاوي 6 متر إلا وحاوي 9 متر 9 طلابو أما 6 طلابو انتاسو وحاوي ونوسو جرسدي فدعا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي أيام مركا منكي هباري إلهي ونجا قبض بقول روايانك قاركود waxay sheegayaan inuu nabigu yiri ilaahay uu naga kaafi ninkan asaga waxa doontana naga kaafi fasakhat yada farasihi fil ardi faraskii watay labadii silugood ayaa marka waxa weey dhulka la gooyay rوايانka qaarkood waxay sheegayaan ilaa 4 jeer arinkaas ayada inay waxa weey ninka asaga ku dhacday oo uu samri la mar walba uu soo orday macna faqala marka waxa uu
markaasaa waxa uu markuu quustay baa waxa uu qad calimtu ana alladii asaabanii biducaa'ikuma waxaa i asiibay oo igu dhacay oo faraskayga sidaa u galay waa habaarka aad i habaarteen fadcu llaaha lii war ilaahay ii barya markaas ayada aniguna ammaan baan isinayaa walakumaa calaya an arudda annaasa cankuma dadkana waa inaga celinaya waxaan dhahayaa nimankii anaa soo waayey wax xaggaa jira haba yaraatee ma jiraan sidaasaan odhanaya wuui dadkii ku odhanaya macnaha fadacaa lahu rasuulu llahi sala alla alay wasalam nabigii markaasuu ilaahay u baryey faraskiisa meesha inuu oga soo saaro fa udliqa markaa waa la sii daayey oo dhibaatadii markaa waa laga sii daayey wa sa'ala rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam an yaktuba lahu kitaaban wuxuu yihi rasuulka ilah waxaad ii qortaa waraaqdaasoo tilmaamaysa inaan ahay waxaa weeyaan nin yani ciidamadaada iyo dadka adiga ku taageersan ayna maaragtay waxba dhibaato aynu geysan karin fakataba lahu abubakar biamrihi fi adiimin abubakar baa marka waxaa weeyaan u qoray riwaayanka qaarkood caamir binu fuhayra ninkii la odhan jiray oo abubakar mawlihiisa oo la socday ilan afar bay ahaayeenoo ninkaa daliilka oo tusaaya waddada iyo caamir binu fuhayra oo addoonkii waxaa weye abubakara iyo nabiga iyo abubakar afartaas ninkaas kalaa u qorayna riwaayanka qaarkood baa tilmaamaya wa kana alkitaabu macahu ilaa fatxi maka kitaabkii iyo waraaqdii loo qorayna wuu haystay ilaa maka macna faja'ahu bilkitaab kitaabkii waxaa weye uu la yimid fawafaahu lahu rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam nabiguna waa ballankii waa u oofiyey wa qaala wuxuu ku yidhi nabigu yowma wafaa'in wa birin maanta waa maalin waxaa weeye laysu baarinimo sameeyo oo isla maaragtay waxaa weeye laguna oofiyo waxa marka aad rabto wa carada calayhima azzaada walximlaan wuxuu yani waxaa weye soo bandhigay marka uu la kulmay nabiga suraaqe inuu maaragtay waxaa weeye xoolo uu siiyo iyo wax gaadiida ay kusii gaarhaan meeshay ku socdaan nabigu wuxuu ku yidhi laa xaajata lanaa bihi wax baahi oon u qabno xoolahaaga ma jiraan wax allaali waxaan kaa rabno ma jiro walaakin cama canna dadka naga indhatir oo dadka u sheeg in yacni waxaa weeyaan haba yaraatee wax xaggan maaragtay ka jira inuusan jirin dadka intaa un nooga sheeg buuri macnaha markaasaa wuxuu isaguna yidhi waxaa weeyaan qad kufiitum dadkii waa linaga kaafiyey anigaa waxaa weeye shaqadaa qabanaya dadkana anaa inaga difaacaya saacaddaa waxaa weye laga bilaabo warajaca wuuna laabtay fawajada annaasa fi dalab dadkii oo raadinaya oo nin walba uu leeyahay nabi maxamed baan soo qabanaya iyo abubakar fajacala yaquulu qad istabra'tu lakum alkhabara waqad kafiitu maa haahunaa war xaggan wixii jiray anaa inaga filan anaa inaga soo kaafiyey wax inaga jira xaggan ma jiraan macnaha wa kaana awala nahaari jaahidan calayhima maalinka gelinkeeda hore wuxuu ku dadaalhayay inuu soo qabto si labadaa boqolee geela u helo wa aakhirahu maalinka gelinkiisi dambana xaarisan lahuma isagaa maaragtay waxaa weeye ilaalinhayay taasi marka waxay ahayd mucjizo la yaab leh oo nabiga calayhi salaatu wasalaam waxaa weeye dhacday dariiqii intii sii socday ninka asaga oo isku dayey inuu nabiga maaragtay waxaa weeye soo dilo ama soo qabto intaana u soo gaadhay in nabiga ilaahay tabaaraka wa tacaala uu ka kaafiyey macnaha mucjizada waxaa weeyaan oo u dambaysa oynu maanta waxaa weeye ishaarayno oo darsigeenna waxaa weeye ka mid ah waa mucjizada waxaa weeyaan dariiqa iyaduna kasii dhacday oo umu macbad gabadhii la odhan jiray nabiga calayhi salaatu wasalaam dhex martay iyo asaga macnaha umu macbad gabadha la yidhaahdo waxay ahayd gabadh waxaa weeyaan degan waddada waxaa weeye u dhaxaysa maka iyo madiina waxay ahayd gabadh caan ku ah in yacni waxaa weeye dadka duyuufta ah iyo dadka waxaa weeyaan martida ah inay marti geliso macnaha ayay caan waxaa weeye ku ahayd gabadh yacni layska yaqaana ahayd oo reer khusaaco qabiilka la yidhaahdo ayay waxaa weeye ayay ahayd nabiga calayhi salaatu wasalaam markii ay u yimaadeen gabadhaas iyadoo meeshaa degan ayagoo aad u haraadsan oo aad iyo aad waxaa weeye u ooman ayay waxaa weeye u yimaadeen markaasaa waxay ku yidhahdeen wax timir ah ama wax waxaa weeye hilib ah oo aan kaa gadanno ma haysataa ayay ku yidhaahdeen markaasaa waxay ku tiri maya way iga dhammaadeen wax allaaliya waxaan hayo ma jiro nabiga calayhi salaatu wasalaam sidaasuu u fiiriyey khaymadii ama meeshii gabadhu ay deganayd markaasaa wuxuu ku arkay neef ariga oo meesha jooga ayuu ku arkay markaasaa wuxuu ku yidhi neefkan ariga muxuu ahaa markaasaa waxay tihi neefkan ariga ah waa mid tacbaan ah oo aad iyo aad waxaa weeye daciif u ah oo meeshan waxaa weeye arigii ka hadhay sababta uga hadhayna maxay tahay waa yani waxaa weye abaarta haysa iyo dhibaatada haysa darteed markaasaa wuxuu ku yidhi ma caana ma leedahay markaasaa intay ku qosashay waxay ku tidhi nabiga ilaahay haddii aad maaragtay caana ka helayso maal bay ku tidhi wuu u yimid nabiga calayhi salaatu wasalaam naasaheedii uu markaasaa uu gacanta u mariyey kadibna waxaa weeye caana ayaa kasoo buuxsamay weel buu u yeedhay markaasuu ku lisay ayadii buu siiyey way cabtay haddana wuu ku lisay dadkii la socday oo dhan baa cabbay nabigii baa cabbay waxoogaa bay joogeen haddana weel kale uu ka buuxiyey meeshii uu marka waxaa weeye oo oga tegey gabadhii waxaa weeye aad iyo aad ayay u yaabtay cabaar kadib ninkeedii baa yimid oo arigii kale wada ari yani waxaa weye aad u taag daran oo tacbaan asagoo wada ayuu keenay wuxuu u yimid gurigii oo caana ay ka buuxaan wuu yaabay wuxuu yidhi war maxaa dhacay arrintan ayadaa
gabadhii waxay ku tiri maanta waxay soo maray nin la yaab leh markaasaa wuxuu ku yidhi bal ii sifee ninka asaga markaasay u sifaysay nin qurux badan oo wanaagsan oo hadalkiisu fiican yahay oo la yaab leh oo cajiib ah oo noocaas ah oo aan dheerayn oo aan gaabnayn oo aan buurayn oo aan dhuubnayn oo yacni waxaa weye oo ragga markaa la socda ninka ugu khatarsana oo ugu qurux badana oo ugu yacni dhan walba ayaa soo maray kadibna markaasaa wuxuu ku yidhi ninka asaga ah waa ninkii waxaa weye saaxibu quraysh ninka aad tilmaamayso oo tilmaamahaas iska leh saaxibu quraysh weeyaan xaggee uu hadda aaday wuu socday bay tiri macnaha wuu tegey kadib maalmo kadib way ka soo daba yimaadeen madiinay yimaadeen labadoodina sidii bay waxaa weeyaan ay ku islaameen mucjisadaasna waxay ahayd mucjisooyinkii nabiga calayhi salaatu wasalaam intii dariiqa waxaa weeye soo socday ayadana waxaa weeye ka dhacday intaasaynu marka darsigeena maanta aynu ku yani waxaa weeye joojinaynaa ilaa huna naktafi in sha allahu tacaala fi lusbuuci alqaadimna halkaas ayay mucjizaadka nabiga inooga socon doonaan baaraka allah fiikum jazakum allahu khayran wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu